فتحدثنا وصاب صلنا تذكي لما كل دمانتيس أي نقريه كبحان وبعد ذلك هي نيا إلهي السياق وما لي waxaan kula dadka dhibaatooyin ku yimid intaana qofaad waa soo jecel waxa weeye wax walba qadar ilaahay wadii imashadaas ilaahay waa madalin la ilaahay waa keenay dadkii marka dhamaan guriyaha barakaceen bacdaday aadeen meel la fariisan lama arko hatta guriyaha dhamaan wax ku hayda malay wax qaarsan min صدقنا بيو أبقي وليا صدقنا بيو أبقي وليا كوكادي كتيانا بقول كاتيريسان ليوا وكليسان كوكادي كتيانا بقول كاتيريسان ليوا وكليسان بقولك وحيستي أبا وليه وكا أبان باني بقول الكلور بريه يحولا نانكودي بابا أي نانكودي بابا أي بقولك وحيستي أبا وليه وكا أبان باني بقول الكلور بريه يحولا نانكودي بابا أي صدقنا بيو أبقي وليا صدقنا بيو أبقي وليا كوكادي تكالا بقول كاتيريسان ليوا وكليسان كوكادي تكالا بقول كاتيريسان ليوا وكليسان صدقنا بيو أبقي وليا صدقنا بيو أبقي وليا كوكادي تكالا sida idin muuqato indhihiina aad ku soo aragteen degmadan dhammaanteed biyo ayaa galay dhowr casho kahor buu roobkii daayay meelaha qaarkood oo biyaha ay ka noqdeen way jirtaa laakiin saameyntii roobka uu ku reebay ayaa noo muuqata dukaamadii baqaaradii gurihii la deganaa meelaha iskuullada qaarkood oo baaba'ay indhaheena ku soo aragnay sida idin muuqata meeshaan dhibaato baaxad la ka dhacday dadkii bannaankay tuuran yihiin guryaha inta badan waa cidlo wey dadka waa ka barakaceen dadkan oo markii hore taba ahaa dad iska danyar intii muddo ahna aysan dowladuhu soo gaarin waxaan halkan baaq oga direynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya wasaaradaha ku shaqo leh in meeshan gargaar degdeg lala soo gaaro sidaas si lamid ah hay'adaha gargaarka ayagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha leh ee gargaar la soo gaaraan musqulihii iyo biyihii iyo wixii dhamaa iyo raashinkii baqaaradii yaallay wixii dhamaa waa isdhex yaaceen waxyaabo badan baa ka dhalan kara marka waxaa ka dhalan kara maaragtaa cudurro dadkii oo musqulaan haysan hadda bannaanada maaragtaa ku hoynahayo gurihii musqulaha halkan isku duma ayagana dhibaato kale keeni kara xagga caafimaadka ah